dadweynaha reer sanaag oo ilaa shalay halkii aanu istaagnaba cadceedda loo taagnaa ilaa xadka sanaag intii aanu soo gallay iyo maanta oo ceeri gaabo waxaan hore loo arag ama soo baxaan hore loo arag oo kalgacal iyo xiise iyo xamaasad wata oo aan sheekh iyo ciroole iyo carruur iyo rag iyo haween aan u kala harin oo madaxdoodii hoggaaminayaan walaalayaal farxadda iyo rayraynta iyo kalgacanka aanu tusteen aad iyo aad baanu idinka mahadnaqaynaa jazaakum allah khayr soo baxani wuxuu muujinayaa soo baxani wuxuu sheegayaa dadka sanaag ku nool iyo maanta dadka ceerigaabo gudaheeda degani inay u soo baxeen qof ma aha dadkani hebel ma soo dhowaynayaan hebel looma taagna dhibtaa iyo hawshaa iyo soo jeedkaa waxaa loo galay qaraarnimaday soo dhowaynayaan madaxweynuhu waa qof laakiin waxa uu sidaa sharaftii qaranka iyo qarnimadii uu huwa yahay taasaa soo dhowayseen waxay muujinaysaa kalgacaylka aa u qabtaan qarankiinna waxaad muujiseen walaalnimada u haysaan qarankiinna iyo dadkiinna iyo dalkiinna o dhan waxaad muujisaan milgaha ay idinku leeyihiin qaranku iyo si ay ugu jawaabaysaan mar labaad dadweynaha reer ceergaabo iyo gobolkao dhanba iyo madaxdooda barasaabka meeyarka odayaashooda salaadiintooda hablahooda dhallinyaradooda aad iyo aad baanu idinka mahadnaqaynaa farriintaana qaranka somalilandna oo dhan way ka farxinaysaa cadowga somalilandna way ka nixinaysaa jazaakum allahu khayr soo dhaweyn kadib walaalayaal maanta inta waxaa u timaadeen aan isku nidwaa wanaag iyo horumarka dalkeenaynu doonayno horumarkana waxaa kowka ah nabadda nabaddu waa inoo wanaagsan tahay mar wal oo bini-aadmigu nool yahayba khilaaf baa jiraya maalin walba hawl baa taagan adduunyadu waa qabiyo oo ma tobnowdo oo ma buxsanto sidaa darteed waxaa loo samaystaa madaxda hadduu caaqil yahay hadduu suldaan yahay hadduu yahay meeyar iyo barasaab iyo baarlamaan iyo madaxweyne iyo culima waxaynu u samaysanaa inaynu maalin walba qabyadaynu gufayno markaa maalin walba hawl baa ina hor taagan maanta hawsha in hor taagan tu badan oo laga baqa ma aha tu laga naxo oo laga ureerana ma aha waa hawl caadi oo maalin walba joogdato la xalli karo markaa gobolka sanaag waa nabad waxa hor yaalaana waa hawlaha gobolada kale yaalla hawlada masaxaya maalin walba oo madax iyo shacab aan soo tegin sanaag mid badeerta gobolada halkan suldaan rashiid markii uu haddaayey ee uu yidhi soomaali o dhan baa joogta iyadmidiya qarinland somaliland war soomaali oo dhan baa ka soo farxanto soomaali oo dhan baa joogto soomaali oo dhan baa ku faanaysa waa hooyadii soomaali oo dhan laakiin dee ilaahay buqcadda barakaysan ee laga soo tarmay ee xijiga leh ee dahabka leh ee badda leh ee saajka leh ee dadka wacan leh ilaahay wuxuu ku beegu ku abuuray dawlad ahaan inay noqoto dalka somalilan hadday tahay taariikh daraawisheed iyo hadday tahay tu culimo iyo hadday tu halgan tahay waa dal somalilan ilaahay ku abuuray oo taariikhdaa leh oo ay dalalka kale aanay la wadaagin laakiin magaceeda ay la wadaagaan taana intaasaa lagu saxaya halkan maalintii ugu dambaysay dhowr qodob baan ka hadlay waxaan ka hadlay dadka somalilan marka la leeyahay waxba isu qarimaynaa dood baa jirta doodaa waxaa loo qaadaa ragga somalilan siyaasadda u haya xisbiyada ka mida iyo madaxdoodu soomaali bay necab yihiin soomaali bay ka cararayaan ka goortaan maalinta hore loo haddana waa ku celinayaan horta waxaan ii sheegayaa somalilan dadka ku nool xaadka u baryeeya ilaa ka u galbeedeeya marka magaca soomaalida la yidhaahdo sharaftiisa soomaali iyo wanaaggeeda iyo horumarkeeda iyo wadajirkeeda koow bay ka yihiin oo iyagaa bilaabay taariikhdu waa maguuraan sidii baana u jeceliya soomaaliyada wanaagsanaato haddaba waxaanu leenahay waar soomaali haddii dawladda dhistaay ka xumaatay oo ka duntay oynu ognahay oy muddo 720 sannadooda murug ku jirto walaalayaal qaybta ay murugu ku jira ee qasan ee inagana dhibaysa iyaguna isdhibaya waa qaybtii talyaanigu xukumi jiray
waxaanu jecelnahay wanaagooda iyanan wax la qabanaa labadaba waxaanu jecelnahay inaanu ka ammaan helo annaguna ammaan siino weliba dadna waa isu xignaa af soomaalina waa ku wada hadalaa dhaqanna waynu wada nahay inaanu idinla xaliilo mashaakilkiina laakiin somalilan mid bay dood ka qabtaa wana aqbalay waxa weeye gurigeyga gubanaya ee igu kaalay oo ila gubo haddii kale kaaga aan kula gubo oo iga tegi mayso dadkaad ila geysa waa ku jiidanaya waar dee caqli ma aha somalilan 27 sano dhisnay ciidamo ajnabi uma iman ciidi mushahar ma siinin dowladeeda ciidankeeda ciidi mushahar ma siinin madax dhaqameedka kolba magaalo looguma yeerin sawaaxili iyo magaalo ajnabi ee madax dhaqameedkeeda iyagaa sanaa ka bilaabay shirkii u horeeyey ee nabadaynta ee somalilan ee 1992 halkanaa laga bilaabay ka unkantay ilaa iyo booram u socday shirkaas maanta waxaan leedahay haddaanu somalilan nahay waar tani way dhisantay oo wax badan bay qabsatay oo gudaheedii bay hagaajisay oo inta ka dhibanna way hagaajisanaysaa qolada taliyaan goysan jira koonfurta waxaanu leenahay waar walaalayaal annagiina na dhibte oo maalin walba qas iyo waxaad nalaag joogtaa dhibaato annagu waxaanu wadaa nabad iyo wanaag ee waxaanu doonanay inaanu wadaagga idiin soo fidinno idinkuna aad dabka iyo sharka naga haysaan intaanu isku hayno waa intaa keliya sanaagna waxaan leeyahay gaadhigu jeen buu wey jeenkaas wuxuu gaadhiga candadaa la yidhaahdaa hamsatu wasal bay waadadu yidhaha markay xurufta isku xidhayaan sanaagu waxa weeye meel shir ka soo farcamay waa meel cid waliba degan tahay waxay noqonaysaa hamsatu wasal tii soomaali isku xidhaysay dhaqan ahaan iyo istifagalan ahaan iyo baayac mushtari ahaan hadday dowladaha soomaalida iyo soomaaliya iskhilaafsan yihiinna waa tii ka qaadan lahayd roolka ugu wanaagsan ee u sheegi lahayd waxaanu qabsanay iyo waxaynu ka diidannahay somaliland lagu xaban maayo soomaalibay magaca soomaaliyeed bay ka diidaysaa soomaaliya anaa ku faanaynaa islaamkana anaa ku faanaynaa diintana anagaa u gurmanaynaa wanaag baanu doonaynaa qofkii shar wado waxaa leena sharkaaga naga daa hadduu sharka naga daa waayo waa iska qabanaynaa keliya weliba nin walba wanaag baanu la jecelnahay maalintii hore intaasaan idhi maantana fariinteedu waa tii waa nabad waa walaaltinimo waa horumar waa wax wada qabsi waa khilaafkeena oo aynu si caqli salmiya u xalilo ninka ceergaabo eedeynayana wax dheerada ka jirana waa beenti dad gobol walba khilaaf waa ka jira gobol walba qabaal waa isku laayaan gobol walba dad waa isku diidan yihiin waxu dheeriyahoo lagu canaanan karo sool sanaag ma jirto qalbi furan iyo wanaag iyo fariintaa noo dhiibteen baanu somalilan noo geerina faankana waa idiin ogolahay intaasoo dhan khayr lahayd siiyey wasalaamu calaykum